بسم الله الرحمن الرحيم أصحابي عشر كنا ندي بقصة نقولنا أنت هنا عشر كنا ما أنت بلعبين واحد دنيا كنال كنا هنا ينص سبسكرايب كرايسان كنال كنا وحلا يرادا أقوان كابي كنال واحد دوننا مركز طوع سبسكرايب صارت كنال واحد أوغانيسا أو فهمسا إن قرال موقع كستو أن سوق اليو كنال كان إن الله صعته مركز واحد وناكسن إن كنال كينو سبسكرايب كرايسو أنت كتب هدين عشر كنا بلونا casharkeenu maanta waxaan kaga hadlaynaa sidee baa loo sameeyaa shahaado casharkeenu maanta casharadii hore uu ka duwan yahay asxaabtaay casharadii hore uu ka xasaasisan yahay taadis waayaan maanta idinku dadaalay oo aan casharkan idinku diyaariyay casharkan maanta wuxuu ka hadlayaa sidee baa shahaado loo sameeyaa shahaado professional ama special sidee baan u sameyn karnaa haddaba shahaado markaynu doonayno inaynu sameeyno qaabkan baa loo sameeyaa qaabkan baynu adeegsanaynaa aan idin soo dhaweeyo halkan baad tagaysaa waxaad tagaysaa meesha ay ku qoran tahay maxay page layout baad tagay waad ku dhufanaysaa waxaad kasii tagaysaa meesha ay ku qoran tahay page border waad kaga sii dhufanaysaa dabadeetana intaa markaad samayso waxa aad ku dhufanaysaa meelaha kale badageli maysid meelaha kale iyaga si gaar ah u baranaynaa meelahan kale waxaa loo isticmaalaa qaybta settingska ku sheegaya qurxintii kale weeye waa qurxintii markaad qurxinayso wixii kale waxyaabahaas isticmaalaysaa waxaan ku dhufanaa meesha la yiraahdo page maxay art meesha ku qoran tahay art ayaad ku dhufanaysaa halka inoo weynay marka waxaan waxa weeye waa borderski note noocyadii borderska marka ka qanciya ayaad ka dooranaysaa hoos bas ugu degi ka qanciya hadeen soo qaadana marka soo kala iminka inoo dooran marka shapeska uu hadhow waraaqdina ay u samaysmayso qaabka ay waraaqdaynu noqonaysaa qaabkaas oo kale noqonaysaa bilmasal oo kale qaabka ay waraaqdaynu noqonaysaa waa maxay qaabkaas oo kale waxay raasaa gariiraha leh borderka bay noqonaysaa balaan okay dhahno okay ma ku dhufanana aan idiso aan marka ku noqono balaan idiso saadaba waraaqdaynu maxay noqotay waraaqdayni systemkaas ay noqotay waraaqdayni maxay isku bedeshay qaabkaas oo kale waraaqdayni maxay noqotay qaabka exactly qaabkaas ay noqotay aan ku celiyo mar kale aynu ku celiyo saad u fahantaan halkaan taabtay step by step si fiican la socda hadii casharku ku dhaafo mar labaad si aad u fahantaa way adag tahay si fiican asxaab ay la socda halkaan tagay markii ugu horeysay waxaan tagay page layout-ka bilmasal kale markay Microsoft Word markuu noocan yahay waxaan ku dhufanayaa tab-ka la yiraahdo page layout waxaan ka sii tagayaa oo ka dooranayaa meesha ay ku qoran tahay page border waan ka sii dooranayaa waxaan ku sii dhufanayaa halka ay ku qoran tahay maxay art exactly then hoos baan u degayaa box qaar baan taabanaya hoos baan u degayaa dabeetana inta ka ku qanciya ayaad ka dooranaysaa adigu marba ka ku qanciyaad ku dooranay bilmasal kalkaas soo kale ayaan ku dhufanay waa taa dabeetana okay baynu dhahaynaa marka waraaqdayna maxay isku bedeshay qaabkaas ayaa isku bedeshay qaabkaas ay noqotay aan soo dhaweeyno qaabkaas ay noqotay inta kadib hadaba waxaan doonaynaa shahaadada hadaba marka la sameynayo maxaynu u baahanaa kale hadda shahaadadu way taagantay waxaan doonaynaa shahaadada inaynu jiifino oo aynu waraaqda jiifino gabigeedaba waraaqdan waxaan doonaynaa jiifino halka tagaysa markaad jiifinayso inta yar ba iyaduna xasaasiya la si fiican la socda markaan doonayo wixii inaan jiifiyo halkaan tagayaa waxaad tagaysaa meesha ay ku qoran tahay margin may halkan tagaysaa waxaad tagaysaa meesha ay ku qoran tahay maxay orientation baad tagaysaa halka ay orientation ku qoran tahay tagay dabeetana iminka labadaas sanad kala baraya waxa la yiraahdo maxaa u dhaxeeya difference-ga u dhaxeeya waa maxay farqa u dhaxeeya portrait iyo landscape waxay ku kala duwan yihiin portrait-ku waa marka ay waraaqdaadu taagan tahay waraaqdaadu markay saa u taagan tahay ayaa portrait la yiraahdaa landscape-kana waxa la yiraahdaa waraaqdaadu marka ay jiifto marka imika hadaynu ku dhufano taa waraaqdayni maxay isku bedelay qaabkaas isku bedeshay exactly way jiifsantay waana sidii aynu doonaynay noqotay marka sidii aynu doonaynay ayay asxaabay aynoo noqotay waay hadaba qoraalkii baan bilaabanaa qoraalkii ayaynu bilaabanaa sayna hadaba tusaale hadaba bixinana hadaba imika bilaabanaa hawshii
sidee baa shahaadadii loo samaynayaa qaabkan weeye bilmasalo kale shahaado goob waxaan sameynaynaa goob private bilmasalo kale waxaan umalayaa shahaadooyinka waa taqaanaa dee iyo qaabka loo isticmaalo marka bilmasalo kale waxaan soo qaadanayaa privatekan waxaa la yihahdaa orbit international college marka orbit ayaynu waynu highlight garaynaynaa dabeetana waynu haweynaynaa si fiican ila socda casharka aan idiin soo dhaweeyo inaad aragtaan baan malanaya mise ma aragtaan qoraalka waxaan malanaya inaydaan aad u arag aan idiin soo dhaweeyo si aad si fiican ila socotaan sidaan qaabkan wax u qorayo iyo qaabka waan highlight garayay ugu horeyn dabeetana halkaasaan tegey dabeetana waxaan haddaan doono waxaan ka bedelayaa nooca afarta waan ka bedeli karaa bilmasalo kalkaa inooga dhig dabadeetana dabeetana maxaynu sameynaynaa intaa markaynu sameyno weliba inoo highlight garay baynu haddana waxaynu tegaynaa centerkaynu dhigaynaa halkaasaan tegaynaa centerka inoo dhig waayahay centerka hee inoo dhig exactly hoosta imaw hoosta markaasaa u timaado waxaan doonaynaa halkaa inaynu ku qorno orbit international orbit international orbit he international maxay college orbit international college baan isticmaalaynaa waa tusaalaan doonaya inaad ku fahamsiiyo si aad waxaan u fahamtaan si aad waxaan hee u fahamtaan dabeetana international college intaa markaynu sameyno waynu highlight garaynaynaa orbit international college fartan waan yaraynaynaa aad baynu yaraynaynaa dabeetana markay saa u yarayno intaasina saa inoogu habowdo waxa aynu sameynaynaa bilmasalo si kale waad dhihi kartaa waxaan isticmaalaynaa text box maadaama halkaas oo kale inoomay tegin halkaa iminka inooma iman marka text box baan isticmaalanaa si aad text box u isticmaasho text boxku waxyaabo inaga caawinaya maxaa kamid ah waan idin fahamsiin doonaa text boxku bal muxuu inaga caawin doonaa wuxuu inaga caawinayaa in qoraalkeenu meesha karsarkeenan bahashan karsarka ahay meesha aan inoo gaari karin ayuu inoo keenayaa markaad insertiga tegaysaa halkaad ka helaysaa waa inserti taabkaad ku dhufanay markaad ku dhuftaad waa soo soconaysaa halkaa maxaa ku qoran text box waka text box baa ku qoran waad ku dhufanay marka text boxan qaabo dhisayna fara badan oo text box ku siinaya adigu waxaad ka dooranaysaa waxaan ka dooranaa waxa weeye ka la yiraahdo draw text box baan ka dooranaa exactly dabeetana halkaas aynu ku jeexaynaa halkaa hoosteeda orbit hoosteeda ayaa maxaynu ku jeexi doonaa orbit hoosteeda ayaynu ku jeexaynaa maxay text boxkii dabeetana halkaas ku qornaa iminka international sorry yariga raalli ahaada qoraalkii baa inaga yara khalkhal gelaya haddii kale waxaan maleeyaa saa inaad ila socotaan international college dabeetana waad yaro weyneynaysaa farta nooca waad yaro weyneynay centerkaad dhigaysaa marka ugu horeysa centerka markaad dhigto waad yaro weyneynaysaa exactly saa markaad u yaro weyneyso waxaad leedahay haddaad doonto halkaa farta waad ka bedeli kartaa nooca farta ay ku qoran tahay waad ka bedeli kartaa kaasaad ka dooran kartaaba noocaasaad kala dooranay dabadeetana in yar baa saa usoo jeedi kartaa exactly dabeetana waxa waad ka qaadi kartaa waxaanaad ka qaadaysaa shapeka waxaad leedahay no outline uma baahni outline sidee baa looga qaadaa iyadu waa baab gaara text box baan isticmaalay borderka yar ee hoose boxka yar sidee baynu uga qaadi karnaa marka waxaan uga qaadi karnaa halkaasaa tegay dabeetana no outline baad leedahay no outline shapeska tegaysaa shapeskaasa tegay dabeetana no outline baad ka dooran kartaa waay ka kaalay halkan imaw haddaba hoos u soo deg waaya haddaba waxaan sameynaynaa certificate baynu idna isticmaalanaa certificate
certificate baynu isticmaalnaa maadaama dee wixii shahaado tahay markaa iyo saa usoo deji markaa farti baan bedelaynaa nooca farta nooca fartaynu bedelaynaa oo halkan hoose ima nooca farta ugu dooranaysaa waa dooranay nooca far aad u qurux badan ayaynu dooranaa bilmasal oo kale may kaa kadaa nooc far fiican ayaan dooranaa bilmasal hadan kaa doorno imika ka waran exactly waxaan marayaa inaan aada nooga muuqan balukaari colorka haddaynu ku darno soo dhaweynaynaa maxaad aragtaa imika noocii bay noqotay farteenii saas oo kale ayaad ka dhiganay dabeetana centerka geyni certificate baa inoo qoran centerkaynu dhignay centerka markaynu geynay maxaynu arkaynaa hoos baad imanaysaa hoosta markaad timaado waxbaad qoraysaa waxaad leedahay this is waan ku dheereynaynaa si fiican la socda waxaan doonaynaa qoraalka inaynu aada u dheerdheereyno waqti baa iskeen guraya this is to certify that Mr. and Mrs. Masters halkaa waxaad ku qoraysaa marka halkaas oo kale magacii baad qoraysaa marka magacii oo kale kasoo qaad Axmed magaca qofka shahaadadan leh marka qofka shahaadadan loo sameynayaa dee laba qof uu noqon karaa ama rag uu noqonayaa qof laba ama qof dhidig uu noqon karaa rag iyo dumar midku doonu noqon karaa marka halka marba wuxuu yahay baad halka ku qoray waxaan leenahay Axmed Ali tusaalaha kale Axmed exactly ha dabeetana saasa sameynaysaa dabeetana intaa markaa saa u samayso iyada centerka dhigi mayno waxaan leenahay halkan inoo geeye qaybta inoo geeye exactly hadhow kulli farta waan hagaajin doonaa horta qoraalkan yaro dhamaystiraynaa qoraal yaro dheer bay ku dardaraynaa has successfully completed information here technology courses and Mrs. Ward Mrs. Office marka halkaa maxaad ku qoraysaa halkaa Mrs. Office ay ku qoran tahay aan idin soo yaro dhaweeyo halkaas waa xasaasi iska eega halkaas si fiican iskaga hubsada halkaas oo kale marka wax lagu qorayo imika halkaas oo kale Mrs. Somarkasan MES waxaa loo soo gaabiyay Microsoft marka qofku wuxuu ka baxay wuxuu ka qalin jabiyay iyo course-ku ka qalin jabiyay bad ku qoray hadduu qofku ICT ka qalin jabiyay halka ICT bad ku qoraysa ICT marka ka soo qaad ba ICT buu dhameeyay qofkan ka soo qaad tusaale ICT gaas ayuu marka hadhow marba waxa qofku dhameeyay ayada halkaa ku qoraysaa intaa markaan isla fahanno waad ka imanaysaa ICT markuu dhameeyay halkaa waxaad ku qoraysaa win 7 ilaa 10 ayuu ku guuleystay comma Mrs. ICT ayuu ku guuleystay costa imaw course-ka noocu ahaa course duration baa halka ku qoray yani course duration waxaa looga jeedaa waqtigu waxaan dhiganayay gormay ahayd
marka laga bilaabo baad leedahay ka soo qaad bishii December aynu ka nimi sanadkii hore oo ahaa 2021 ilaa wuxuu dhiganayay ka soo qaad ama 20 buu dhiganayay ka soo qaad ilaa wuxuu ku dhamaysanayay oo ku dhameeyay December 2021 intaas uu dhiganayay intaas markaa waxay noqonaysaa 2 sano ay noqonaysaa inta uu dhiganayay 2 sano wuxuu bilaabay December markaa wuxuu dhiganayay bay noqonaysaa sanad buu dhiganayay I mean hadal hilmaan hadal kuma jiro wuxuu dhiganayay markaa waxay noqonaysaa sanad buu dhiganayay maadaama sanadka hore u dhamaaday adigu sanad buu dhiganayay ay noqonaysaa ICT sanad buu dhiganayay marka ICT ina inta badan sanad lama dhigto sanad uu ka badan karaa oo waqtiyo fara badan buu qaataa laakiin imika tusaale ayaynu ku bixinanaa si aad adigu u fahanto ayaa doonaya inta ugu dambeyn waxaan ku gabagabeynaynaa data oo ah data of issue oo noqonaysa markaa xilligii ay soo baxday shahaadadan xilligii la sameeyay ay soo baxday ka soo qaad waxay soo baxday 10kii bishii January 20 22 bay soo baxday oo maanta sanadkan aynu ku jirno ay soo baxday shahaadadani inta weeye shahaadada horta qaabkaas loo diyaariyaa marka aynu inta sameeyno waxay noo haray badmanaysaan waxay noo haray halkan hoose imaw waxay noo haray halka hoose ayaynu sameeynaa kaliya saxiixii baan ku daranaa qofkii saxiixaya waxaan ka soo qaad manager maxaa la yiraahdaa ama waxaan leenahay chairman of Orbit International College hoosta imaw halkaas oo kale halkaas inoo yimi waday bahashi marka waxaan sameynaynaa chairman Orbit International College waxaan maleynayaa in si fiican la ila socdo inta markaynu qorno waxaan isticmaalanaa textbookskii aan hore u isticmaalnay waayo falaadho halka hoose inoo tagi mayso saynu falaadho halka u geysano halkaas aan doonana hadaba inaan wax ka jeexno sirta halka si fiican la socda marta waxaan jeexnaa marka halka maxaan uga jeedaa waa saxiixii waa wixii in la saxiixo aynu halka uga jeednaa marka chairman-kii baad halka qoraysaa halkaas oo kale waxaad ka yara sarreysiin kartaaba qofkii magaciisii baad halka ku qori kartaa marka qaabkaas oo kale ayaa loo diyaariyaa marka ka soo qaad qofkan magaciisu ka soo qaad asxaabey qofkan magaciisa waxa la yiraahdaa qofkan magaciisa waxa la oranayaa qofkan waxa la yiraahdaa Xasan Maxamuud Jaamac ka soo qaad qofkan marka waaniga anaa tusaale isku bixinaya hadhow qofka waxaad qoraysaa qofka magaciisa saxda baad qoraysaa meesha ay ku qoraysaa qofka gudoomiyaha qofka shahaada marka shahaadadii imika qaabkaas loo sameeyaa haddaba intaynaan intaa ka gudbin waxaan doonaynaa waxaan u baahanahay haddaba waxaan doonaynaa qoraalka inaynu hagaajino haddaba wixii aynu qornay dee inaynu iska hagaajino ma ahayn inaynu iska hagaajino weeyadi waa inaynu iska hagaajinaa kuwaasoo kale waan bedelaynaa qaabkay ku qoran yihiin noocaas oo kale ka dhigananaa nooca farta waan ka bedelaynaa madow baan ka dhigananaa exactly intaa marka aynu sameyno waxaynu geynaynaa centerka exactly
intaa marka aynu samayno ninka guddoomiyaha magaciisa waan bedelaynaa waxaynu ka dhiganaynaa adigu intaas way naga yara dhaqaaqday anaa soo hagaajin doona iyadana saa inooga dhig intaa markaynu samayno waxaa sidan u galay waayahay halkan oo kale hoos inoogu yarare wakaa maaratan qoraalkaas oo kale naga saar waxaa then waxaad sameynaysaa no outline baad leedahay tanna waxaad leedahay no outline uma baahni wax outline dabeetana halkaa maxay noogu dhamaaday halkaa waxay noogu dhamaaday wax la yidhaahdo halkaa waxay noogu dhamaaday maxay halkaa maxay noogu dhamaaday asxaabey marka overview-gu waa tan shahaadadii markaa qaabkaas oo kale ayaa loo sameynayaa halkaa maxaad soo gelinaynaa markaa loogadii baa inoo hadhay loogadii baan doonayna inay soo gelino marka aynu looga soo gelinayno halkaa si fiican la socda iyadana loogada marka aynu soo gelinno how see baan kasoo gelinaynaa se maxaynu xageen ka tegaynaa markaynu soo gelinno loogada markaad doonaysa inaad soo geliso waxaad gelaysaa insert tab baad gelay waayo insert tab micnaheedu waxa weeye waa in wax la soo geliyo picture baad tegaysaa halka ay ku qoran tahay maxay picture baad ku dhufanaysaa markaasaa picture ugu dhufato waxaa kuusoo baxaya daaqadan baa kuusoo baxaysa marka waxaad ka dooranaysaa loogadaadu meesha ay ku taalaad ka dooranaysaa aniga waxay taallaa halka meesha ay Facebook ku qoran tahay folderka Facebook ku qoran yahay dabeetana waa tan loogadii orbit wataa waan ku dhufanayaa marka maxaa isbedeli doona waan yaraynayaa si aan u yareeyo hadda waxaan doonaynaa inaynu iska yarayno exactly waxaan tegayaa hoos baan usoo jiidayaa waxaan yaraynayaa maxay bahashan baan yaraynayaa shift baad isku qabanaysaa iyo right click dabeetana waad yaraynaa at the same time inta halkaasaad ku dhufanaysaa text raabin baad ku dhufana haddeen marka aad soo gelinayso bilmasal oo kale waxaa jirta inaanay kuu dhaqaaqayn loogadii marka waxyaaba jirta inaanay haddee loogada haddaan saa ku dhufto ma dhaqaaqayso maarta ma dhaqaaqi karto ciladaas oo kale kugu imanay maxaad samaynay si aad u dhaqaajiso ee aad meesha doonayso marba u geysato waxaad tegaysaa meesha ay ku qoran tahay aan idin soo dhaweeyay yiri suga waxaad tegaysaa halkaa nala socdo si fiican oo xasaasi weeye waxaad tegaysaa halka ay ku qoran tahay maxay text raabin maxaa halkaa ku qoran text raabin waad ku dhufanaysaa marka maxaad kasii dooranaysaa in front of text oo micnaheedu tahay in la riixriixo oo bahashii movement ay samayso waad ku dhufanay imika falaadhayni eega waa isdhaqaajin doontaa waynu qaadqaadi karnaa waynu qaadqaadi karaynaa waynu qaadqaadi karnaa eega isaan idin fahamsiiyo maxay samaysaa waraaqdii exactly maxaa samaynay waxaynu samaynay inay bahashi marba qaadqaadi karno marka hore may dhaqaaqayso ma imika meeshaynu doonaynu geyn karnaa soo maa exactly marka waxaynu sameynaynaa hadda dhinacaasoo kalean dhigi karnaa dhinacaasoo kalean geegi karnaa dhinacaanan dhigi karnaa marka loogadiina saasina ku gelinay marka iminka anigu aad uma qorqorxin bahalkan sidee baynu xitaa watermark u gelin karnaa loogada watermark lafteedaan doonayna in dhigo waxaad tegaysaa intaana si fiican iminka waynu dhamaynay overview-gii sida shahaadada loo sameeyo qurxintii waynu wadnaa qurxintiina waynu dhamaynay maxaa inoo hadhay uun sideebaa watermark loogu sameeyaa shahaadada watermark waxa weeye in loogadaas oo arki maysaan iminka halkan taalla inaynu dhexdeeda soo gelino bahashu ay ka dhex muuqato ila socdaan si fiican la socda halkaasi waa in yaroo xasaasiya oo muhiima oo la rabo inaad ogaato waa cashar aad u muhiima oo qodob aad u muhiima oo fiican inaad ardayga ogaato waxaad tegaysaa insertiga tegi waxaad ku qoraysaa waxaad imanaysaa meesha ay la yiraahdo page layout-ka hadal kuma jiro sorry page layout-kaad imanaysaa meesha page layout-ka ay ku qoran tahay imanay dabeetana maxaa halkaa ku qoran watermark exactly watermark baad ku dhufanay hoosteedaad imanay hoosteeda ayaad imanaysaa waxaad ku dhufanaysaa meeshay ku qoran tahay custom watermark hoos baad dusha tegaysaa maxaad ku qoray halkaa maxaa halkaa ku qoran
picture watermark marka aan idin fahamsiiyo daaqadan yar waa daaqadii watermark barta hore waxa ku qoran watermark no watermark halkan waxa ku qoran picture watermark halkan waxa ku qoran text watermark marka maxay kala qabtaan waxani marka aanan watermark u baahnayn no watermark ba tahay marka aad doonayso inaad text watermark text ku darto halkaas halkan aad ku dhufanaysaa ma fahamtay marka imika text bot inta badan looma isticmaalo oo soo gelinaa hadaba loogadii baan soo gelinayna halkaasina picture watermark waa marka soo gelinayso watermark loogadii imika select baad leedahay waxaan soo dooranaynaa watermark loogadii baan soo dooranaynaa waa taa waxaan ku dhufanaynaa halka ay ku qoran tahay maxay insert apply baad leedahay oo dibadana waa iska xirsaa daaqada inta kadib daaqadii baa iska xiran bal haddaba aan idin yara weyneeyo aan idin yara hagaajiyo noo kaani bahashi maxaa iska bedelay balaaga maxaa iska bedelay waxaad aragtaan inay iska bedeshay maxay watermark inuu soo fuulay oo ah in dhexdii aad aragtaan loogadii tan ahayd ayaa dhexdii maaragtaan aragtay inaad timi exactly marka watermarkuna waa nooca in loogadii dhexda la dhigo saas oo kale marka intaa kadib saasaa shahaadadii loo sameynayaa halkan oo kale waxaad soo gelin kartaa qaybtan oo kale qofkii sawirkiisa soo gelin kartaa waxaad tegaysaa insert waxaad ku dhufanaysaa shapes ka isticmaalayo kaasoo kale aad dooranaysaa dabeetana halkan oo kale waxaad dahaysaa intaasoo kale intaa maxaynu uga jeednaa marka qofkii de in sawirkiisii la soo geliyay sooma waa in qofkii sawirkii la geliyaa meesha sawirkiisii marka shahaadadii saasay ku samaysameysaa shahaadadii qaabkaas ayaa loo abuurayaa then intaa kadib waxaa la sameynayaa in hadilmaayo waxaa la sameynayaa asxaabay wax la yidhaahdo waxaa la sameynayaa shahaadadii saasaa hadhowta lagu daabacaya lagu soo saaraya saasaa lagu hagaajinaya marka qaabka shahaadada loo sameeya horta waa qaabka halkaana marka waxaa lasoo gelinayaa boxka yar shapeska waxaa lasoo gelinayaa maxay sawirkii qofka shahaadadan loo sameynayo waa idinka arkay shahaada marka la sameynayo qofka dushiisa waxaa laga dhajiyaa qof sawirkii marka halkaas sawirkiibaa lasoo gelinayaa marka shahaadada hadhowta adaa qurxisan karaa oo wax ku dardari karaa oo hagaajisan karaya imika inagu waxaan doonayaa tusaale weyn idin fahamsiiyo waxyaabo fara badan ba hadday doonaan aad ku dari kartaa waad hagaajin kartaa waad qurxin kartaa desaynkeeda aad baad u hagaajin kartaa desaynka si fiican baad u habeyn kartaa laakiin ujeedadu waxay ahayd imika inaan idin fahamsiiyo inaan idin tilmaanun bay ahayd aniga waxay ahayd inaan idin tilmaamo oo idin fahamsiiyo oo concept idin siiyo marka conceptigana waa intaa casharkeenu maanta asxaabay intaas baynu kusoo gabagabaynoonaa wabilaahi tawfiiq wabilaahi